Hallo walaalayaal waa idin salaamayaa rabbiga ha idin barakeeyo soo dhawaada Soomaali oo dhan meel kastoo joogtaan rabbiga ayaa mahad leh waxaan doonayaa maanta inaan la qaybsado cashir ku saabsan sharciga iyo masiixiyadda sharcigeeda iyo sharciga masiixiyadda muxuu farayaa waxaa laga yaabaa in su-aal isweydiin mudan ay tahay qof kasta inaan anaga sharci ku hoos jirin aad u malayn kartaan qofka masiixiga xataa u malayn karo qof inaan sharci ku hoos jirin soo marka waa maxay sharciga iyo sida u malayn karno waan isla dhigaynaa waa maxay sharcigu waa waxa cadeeya qofka dambiilaha ah marka dambi gashid dambiga waxa cadeeya way sidaad ognahayba qaladkaaga waxa cadeynaya way sharciga xataa hadaa ilaahay ka gashid iyo hadaad bini aadamka ka gashidba marka kitaabka muxuu ka dhahayaa masiixa muxuu ka oranayaa ayaa muhiim ah ku hormaraya Roma 3:20 waana ognahay in mar walba wixii sharcigu yiraahdo uu leeyahay kuwa sharciga ku hoos jira in af kasta la xiro oo dunida oo dhami ay ilaah ku hor gardarnaato maxaa yeelay shuqulladu sharciga nin xaq ku noqon maayo hortiisa waayo sharciga ayaa lagu gartaa dambiga qof kasta haddii la yiraahdo dambi ma gashay wuxuu dhihi lahaa aniga dambi weligay ma gelin laakiin dambiga waxa cadeynaya ilaahay iyo sharciga sida lowga waxa la yiraahdo Soomaaliga ma aqaano waa sharci maxkamadda cadeynaysa laakiin aniga haddii la weydiiyo dambi weligaa ma gashay wixii la igu soo qabto la igu soo oogo maana wax kale oo la cadeyn karo ma lahan sidaa darteed muhiimaddu waxa weeye qofka ilaahay buu sharci ugu jiraa qofka masiixigana dambigiisa ilaahay unbaa xukumi kara dowladana sharciga ka gashay dowladda xukumi karta sharciga waa waxa qofka xira waaye kan labaad su'aasha labaad waxa marka haddaan anagoo dhan wada dambiilanahay ilaahay hortiis oo sharcigaasiti na kala bixinaya kitaabku muxuu ka dhahayaa waa maxay hadaba masiixiyadda waxa dambiga ay u taqaano marka dambiga waa maxay hadaba miyaynu dhahnaa inaga miyaan sinaba waayo horaanan u dacweynay yuhuudda iyo Greek inaynu kulligiin dambi ku hoos jiraan anaga haddaan nahay masiixiin waxaan isleenahay dadkan oo dhan anaga waa badbaadnay soo sharcigii baan anaga way ku hoos jiraan soo anaga waxaan nahay dad u dhacatay oo sharciga ka hoos baxay sababtoo ah waxa aanaba waxa weeye masiixiyadda ee dhaanto waxa weeye waa anaga ciise masiixa noo dhintay soo sharciga kuma hoos jirno marka macnaha wax kasta ma samayn karnaa wax walba aan samayn karnaa miyaa bacdama anaga rabbi ciise masiix naga furtay dambiyadeena wax walba ma samayn karnaa maya way macnaheeda sababtoo ah
ciise masiix wuxuuba nooga dhintay dembi, maalintuu nooga dhintay oon soo raacnay dembiyadii maalintaasaan ka tagnay, laakiin dembi kale ma geli karno. haddaan galnana waa inaan ka toobad keennaa. waa haddaan dembi galno waa dembiga nagu tahay, laakiin maalinta aan rabbiga soo raacna ayaan dembiyada oo dhan ka dhimanay. oo qofka waxaa laga rabaa inuu dembi kala galin. ilaahay sharcigiisu wuu adag yahay. marka waxaa imaanaysa sharciga ilaahay maxaa waaye, sharciga ilaahay waa adag yahay, sababtoo qofka waxaa laga rabaa masiixiyadda oo aad dadka kale islaamka ama yuhuudda ama waxa kale diimaha kale waxaa laga yaabaa in dee xukunkii iyo wixii dembiga u yaqaanaan inay wax sahal tahay, laakiin masiixiyadda qofka waxaa laga rabaa inuu ilaahay u ekaado. qofka masiixiga waxaa laga rabaa waa qof temple of God ah, waxaa laga rabaa sidii ilaahay inuu dhaqmo, wax xumaanta ka leexdo, inuu dhibka iska yare dhib galin, waa inuu qalbiga daahir ka yahay, wax fiirinin. xataa hadday wax fiirin waad arki doontaa ayado dambe aan soo qaadanayo, xataa qofka inuu qalbiga xataa mar asagoonan hadlin qalbiga inuu dembi judgment ka sameeyaa laga yaabaa, indhaha intuu fiiriyo inuu qalad ka galo. marka way ka adag tahay masiixiyadda dadka maaragtay kale waxaasheed, sababto waxaana laka rabaa anagoo bili aadana inaan ilaahay u ekaano. wuu adag yahay, qofna uma fududa. marka ku kasta oo haddana xataa ku kasta masiixiyadda waxay sheegaysaa Job 2:10 ku kasta oo kii sharciga oo dhan xajiya qaynuunka keliya oo ku gafaa kulli wuu ku gafaa, mid ku gafaa kulli wuu ku gafaa. qofkii hal qalad sameeya masiixiyiinta qaladadii dhan adoo samayso waaye. marka waa kee marka qofka bini aadanka oo wax kasta samayn kara oo wax kasta kasoo bixi kara. su-aasha afraad qaybta afraad waxaa waaye ilaahay wixiisi oo dhan anaga masiixiyiinta haddaan nahay wixii oo dhan ilaahay labu kusoo koobay markuu dadka la hadlayo masiixa uu yimaade. labadana waxaa waaye inaan ilaahay ka jeclaano wax kasta oo jira, oo ilaahay maamuusno, oo ilaahay tixgelino oo ay adag tahay, iyo inaan dadka oo dhan dariskeena oo dhan aan jeclaano, ummadda oo dhan aan nafteena ka jeclaano. marka Matthew 22:32-40 annagu waxaan ahay ilaaha oo leeyahay ilaahay Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub. isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay, macnaa dadka aan masiixiga ahayn maahane ilaah, laakiin waa kuwa nool, waa kuwa uu badbaadiyey weeye ilaahiisa. dadkii badanaa goortay taas maqleen ayay waxbaradiisii ka yaabeen, laakiin farisiinta because waxa nool dadka waxay u yaqaanaan nolosha iyo dhimashada, laakiin nolosha waxaa la dhahaa waxa qofka badbaaday. kan dhintayna waxaa waaye kan aan badbaadin oo dhintay, kaasaan u naqaanaa. dadka badanaa goortay taas maqleen ayay waxbaradiisii ka yaabeen oo yiraahdeen oo la yaabeen, laakiin farisiinta goortay maqleen inuu saduqiintii aamusiyey ayay isku yimaadeen, oo midkoodba sharciga yaqaanay ayaa wuxuu weydiiyey isaga ciise masiix isagoo jirrabaya, wuxuu ku yiri macallimow, qaynuunkeebaa sharciga ugu weyn? kolkaasuu ku yiri isagii, waa inaad rabbiga ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan
iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. Kani waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horeeya. Ku labaad oo u egna waa kan: waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. Sharciga oo dhan iyo nebiyadiina waxay suran yihiin labada qaynuun. Waa labada qaynuun aan idiin sheegay, in ilaahay aad naftaada oo dhan ka jeclaataa iyo inaad deriskaaga jeclaataa. ilaahay naftaada say uga jeclaanaysa? Ilaahay naftaada waxaa uga jeclaanaysa wax kastoo ilaahay necab yahay oo dhan. Nafta jirkaad ka adkaanaysaa. Wax kasta oo xun, sina, cay, xumaan, xadid, tuugo, wax kasta oo qofka loo ogoleen oo dhan waad iska daynaysaa. oo awood ilaahay inuu ku siiyo mooyaane awood kuma lahan karti rabka. Laakiin awood baan leenahay masiixiyiinta ruuxa quduuska ah. Aad ka baryaysaa inaad qalbigaaga rabbiga jacaylkiisa darti aa u qabtid, aad ilaahay kaliya u jeesatid. Iyo kan labaad oo ah dadkoo dhan inaad jeclaatid, naftaada ka jeclaatid, dadka maamustid, aadan dhibin, dadka dhibin, aad dadka waxba ku waxaynin. oo ummadda ilaahay isagaa jecel ummadda, isagaa ummadiisa u ah aabe. Wuxuu rabaa in annagoo dhan aan isjeclaano, annagoo dhan aan is dhibin, ummadoo dhan ay xataa qofka hadduu rabo ha ku naco, laakiin adiga inaad jeclaatid. Sababta asagaba kuwa aanan rabin oon jecleen buu jecel yahay, because sababtoo ah dadkoo dhan isagaa abuuray. So qof kasta wuu jecel yahay, xataa isagoon rabin oona arkeen. Jaceylkiisa ma ahan jaceylkeena waa mid markuu wax noo sameeyo, qofkii wanaag noo sameeyo aan jeclaanayno. Laakiin jaceylkiisa rabbiga waxaa waaye in aad jeclaatid mid kasta, xataa asagoon ku jecleen. Awooddaas isagaa ku siinaya, laakiin waa inaad adigana adeecdaa oo aad isku daydaa oo qalbigaaga ilaahay nadiifiyaa oo awood aa heshaa. labada qaynuun oo aadka u adag oo aad ogtihiin baa masiixiyiinta lagu xukumay. qaynuunkoodana ku hoos jiraa, wayna adag tahay. sida nala amray sharciga waana u qaadanaa siduu ilaahay noo sheegay. ma ahan dadkaan naqaano ama ilaah noo soo dhaweeyey rabbiga siduu naga rabo ayaa inaan u dhaqano weeye. maaha dadkaan jecelnahay inaan jeclaano, dadkii necab inaan nacno ma ahan. marka kitaabka muxuu ka leeyahay Dr. 5:6:21 anigu waxaan ahay rabbiga ilaaha ah oo kasoo bixiyay dalka Masar iyo guriga adoonsiga. aniga ilaahaasaan ahay waaye, waa ilaahay idin xoreeyaan ahay. aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaanan lahaanin. waa inaanan sanabyo xardhan oo u eg waxa samada sare ku jira, ama kuwa waxay caabudaan roobka, kuwa dhulka hoostiisa ku jira, kuwa biyaha dhulka hooseeya ku jira bay caabudaan. waxaasoo dhan waa inaanan caabudin. waa inaanan iyaga u sujuudin. waxa roobka markuu noo da'o barwaaqo geel baa noo dhalay, roob waa inaanan sameynin. ama ilaahay meeshaas xikmad baa ku jirto. waxa aad u baahantihiin ha u sujuudinina waaye, wax aad jeceshiin ha u sujuudina laga wadaa. waayo anigoo ah rabbiga ilaahayga waxaan ahay ilaaha Masar oo ah xumaanta awoowayaashiin, waxaana soo gaarsiinayaa caruurtooda iyo tan iyo farcankii 3aad iyo kan 4aad kuwa idin jecel amradayday xajiyaan. waa inaan magaca rabbiga ilaaha ah si been ah ugu hadal qaadin.
dad baa si aad qofkan u martid rabbigaad ku dhaaranaysaa, si aad qofka wax uga dhacdid sidaan dhaqankeenu u yahay wallaahi, ama rabbiga magaciisa aad wax xun ku sameynin, oo qofka inta lagu aamino rabbiga dartiisa haddana aad xumaan aada sameynin. waxyaalaha rabbiga dadka inta badan hadda waqtiga la joogo waxaa waa rabbiga aad baa loogu beemicshtar looga dhigaa, sida kuwa businessyada ku sameysta Christmaska waxaas, geedaha Christmaska waxaas oo dhan. waa inaadan wax rabbiga maaragtay xoolihiisa haddii lagu dhiibo aadan xumeynin, aadan rabbiga magaciisana lagugu waxeeya aadan dhicin, rabbiga magaciisa adiga wax inaad ku xumeyn, inaad quduus ka dhigto sidii rabbiga ilaahagaaga ku amray, siduu ilaahay quduus u yahay, siduu wuxuu ilaahay kuugu ogyahay, ilaahay siduu u waxeeyo inaad adigana u sameysid. 6 maalmood waa inaad hawshootaa oo aad shuqulkaaga oo dhan qabsataa 6 beri, laakiinse maalinta 7aad waa maalinta sabtiga ah, rabbiga ilaahagaaga ah waa inaad shuqul badan adiga ama wiilkaaga ama gabadhaada ama adoontaada ama adoonkaaga ama dibigaaga ama dameerkaaga ama mid kasta oo xoolaha ah ama qariibka irdahaaga ku jira, si adoonkaagu adoontaaduba ay u nastaan sidaad oo kale, sidaa aad rabti inaad u nasatid. dadkana waa inaad sida kambaniyada dadka lala hadlaya, waa inay dadka fasax siiyaan, qofka ku shaqeeyo, qofka hadda waqtiyadii waa isbedelay, waa inaad qofka ku shaqeeya xataa sida naftaada uga naxayso kale asna aada uga naxdaa. waa inaad xasuusataa inaad adoon ku ahaan jirtay dalka Masar, inaad adiga sida because reer Israa'iil buu ilaahay tusaale nooga dhigaa. reer bini Israa'iil waxay ahaayeen dad adoon u ah Masar, boqortooyadii meesha markaa ka dhisneen. rabbiga ilaahagaaga oo halkaasuu kaaga soo bixiyay gacanta xooga badan iyo cudud fidsan. sidaas daraadeed rabbiga ilaahagaaga oo wuxuu kugu amray inaad dhowrto maalinta sabtida. aabaha iyo hooyada u maamuus sida rabbiga ilaahagaaga oo kugu amray. waalidkaa waa inaad ka duceysataa, waalidkaa inaad haysaa, waalidkaa inaad caawisaa, waalidkaa inaad dhageysataa, siduu ilaahay kugu amray waa inaad xushmeysaa, inaad waalid caasi noqonin. waa muhiim, masiixiyadda waa sharcigeeda ku jira in waalidka wax aada inaad maamustid waaye. waalidkaaga rabbigaaga ilaahaaga kugu amray in aad cimrigaaga dheeraado oo aad ku nabdootaatid, inaad ajar ka raadsid dalka rabbiga ilaahagaaga ah oo ku siiya. waa inaadan qudhgoynin, waa inaad xdilin, waa inaadan sinaysan, waa inaadan waxadin. dadka sinaysan waxaa waa sinka, annaga haddaan Soomaalinahay sinta waxaa u naqaanaa nin iyo naag, laakiin sin masiixiyadda waxaa loo yaqaanaa inaadan dambaabin, inaadan waxaadan ahayn waxaan ilaahay rabin maamuusin, waa inaadan maaragtay dadka ummadda kaa nabadgalaan, waa inaadan xukumin, waa inaad gurigaaga dhowrtaa, waa inaad noloshaada dhowrtaa, waa in aadan waxba xadin, waa inaadan dariskaaga marag beena ugu furin. waxaa laga wadaa dadka aad saaxiibka la tahay, dad baa waxay sameeyaan maxkamadaha yimaado si ay qofkan u badbaadiyaan walaalkood iyo waxooda, marka marag beena u furaa. marka dariskaaga waa qofkii kuu dhow aad taqaanid, waa inaadan damcin naagta dariskaaga, damaca waa inaad xoolihiisa qofka ama naagtiisa ama ninkeeda inaadan damcin,
waa inaadan damcin guriga dariskaaga ama beertiisa, qof xoolihiisa iyo noloshiisa waa inaad damcin, ama adoonkiisa ama adoontiisa ama dibigiisa ama dameertiisa ama waxa dariskaagu leeyahay oo dhan. Waxaa ka mid ah sharciga loo xajin doono damaca jirka, sida rabbigu uu arko iyo sida aan u aragno waa kala labo. Haddaba waa inaa laga dheeraado sinada jirkeena iyo qalbigeena rabbigeena waa inaan aad u tixgelinaa, waa inaan nahaanaa quduus. Jirkeena waa inaan maamusnaa, waa inaan dhagaheena maamusnaa, qalbigeena maamusnaa. rabbiyo ilaaha awoodaada unbaa lagu sameyn karaa. Marka kitaabku muxuu ka leeyahay Matthew 5:37-48. waa maqasheen in la yiri inaan hasinaysanin, laakiin waxaan idinku leeyahay nin walba oo qof dumar ah damac u eega durbo qalbigaaga ka sinaysata. ka waran qofka masiixiyadda hadduu naagta eego oo si damac u eego wuu sinayso. Ilaahay inuu toobad keeno waayo. haddii ishaada midig ku xumaysa iska bixi oo iska tuur, waayo waxaa ka wanaagsan inaa xubnahaaga mid kaa dhunto intaa jirkaaga oo dhan jahannamo lagu tuuri lahaa. gacanta inaa xado waxaa kaa roon inaa iska goysid. sidaas Old Testimony iyo waxa ay ka keeneen waxaa waaye in gacanta la gooyo, isha ilaha loo rido loo dhihi jiray waaye. marka inaa adiga markaanayta waa adiga isxukuna lagu leeyahay masiixiyadda. gacantaada midigta ku xumaysa iska jir oo iska tuur, waayo waxaa ka wanaagsan inaa xubnaha mid kaa lunto intii aad jirkaaga oo dhan gali lahaa jahannamo. saas darteed u samaa sida aabihiina jannada ku jiro u san yahay. macnaheedu waxaa weeye masiixiga inaa u ekaada sida aabihiin u ekaada. masiixina dambiilo la-aan buu ahaa, ma ahayn. ilaahay weeye, quduus weeye. annagana waxaan nahay wax dambiilo ah oo maalin walba damac gubaya oo danan leh oo dunidii maskaxdooda aan caqligooda ku filnayn. marka awooddaas oo dhan, sharciga oo dhan waa inaan ka dheeraano. wax kastoo xun haddaan masiixa soo raacnay waa inaan sinaysan, waa inaan waxa jirkeena ka adkaano, waa inaan xanaaqeena ka adkaano, waa inaan isheena ka adkaano, waa inaan damaceena ka adkaano. qofka markuu korkiisa dhan ka adkaado iyo qalbigiisa ayuu rabbiga raaci karaa, uu rabbiga la socon karaa. marka masiixiyaddu ma aha sahal, ma ahan. marka walaalayaalo, sharciga waxyaalo badan oo masiixiyadda ma sahlano sharcigeeda, laakiin awoodda rabbiga oo lagu adkaado, awoodda rabbiga oo la haysto, awoodda rabbiga oo laisku duubo, awoodda rabbiga oo rabbiga la ixtiraamo ayaa lagu gaari karaa. kaasaa lagu gaari karaa. kaasaa sharciga in rabbiga quduuska qalbigaaga xataa jirkaaga ilaah baa kugu dhex nool uu leeyahay rabbiga. qof ilaahay isku dhex nool yahay, jirkaaga waa macbudkii rabbiga uu rabbiga ku leeyahay. marka sideebaa qof ilaahay ku dhex nool yahay oo macbudka ilaahay wax ma xaman karo, wax ma dili karo, wax ma dhici karo. sharci masiixiyadda waa taas. ma aha sharciga masiixiyadda in qof inta ku yimaado ama adi qof u tagtid tiraa dembigaaga waa kaas, adi dembigaagaad gashay. sharciga rabbiga asagaa xukumaya. markaan isaga u tagno ayuuna xukumaya. laakiin annaga intaan joogno Bible-ku noogu qoray, intaan nool nahay waa inaan ka dheeraanaa wax inaana caabudin, waa inaana wax raacin.
waa inaan isinaysan, waa inaan been iskugu marqaati furin, waa inaan ma aragtay qalbigeena oo dhan ilaahay laba wax buu kusoo koobay, inaan ilaahay qalbigeena oo dhan ka jeclaano, inaan dariska oo dhan jeclaano, nafteena ka jeclaano. labadaas baa ilaahay kusoo koobay. labadaas marka sidaa u samayn karnaa inaan rabbiga hor dhignaa, waa awood ku yeelanaa, rabbiga awooddaasna siinayo si aan uga adkaano sharciga masiixiyadda. qodobkeena ahaa caawa aynu kala qaybsan lahaa intaasuu ku egyahay. rabbiyo ilaahayow adaan kusoo hor keenayaa, nagu samee inaan sharcigaaga aan oogno rabbiyo, inaan quduus ahaano, inaan jirkeena macbudka ahaado, inaan awoodda ruuxa ku soconno. ruuxa awooddiisa ayaan na gaarsiin karta rabbiyo. aabbo macaanow, inaan waalidkeen maamuusno, dadkeena aan la soconno, awood kasta adiga kaa ahaatay rabbiyo. adiga sharciga adigaa noo ah rabbiyo. sharciga bacdimaa naga hoos furtay rabbiyo. ruuxa quduuska aad noo soo dirtay nagu hogaami. qof kastoo rabbiyo dhagaysta ama maqla in cashirkan rabbiyo, aniga laftigayga iga dhex shaqaysii rabbiyo awooddaada. qof kastoo maqlan rabbiyo qalbigiisa taabo, sharciga ha ku maamuuso. labadaa sharci aan kusoo koobtay rabbiyo, inaan adiga qalbigeena oo dhan kaa jeclaano, inaan dariskeena nafteena ka jeclaano. waa mahadsantihiin intaa dhagaysateen walaalayaal. intaas waxaan ku weydiisanayaa magacyada ugu sarreeya in Jesus name. Amen.